السلام عليكم أصحاب تسلي هاي iska warama bal xaaladihiina maanta waxaan doonayaa inaan cashar yar aan idin siiyo oo ku saabsan meelaha windowga computerka ugu jira aad ka ogaan kartid, sidoo kale RAM size-ka aad ka ogaanaysid, processor-ka, windowga hadduu active yahay iyo hadduuna active ayaan doonayaa inaan idin la wadaago. Welcome to my class today. And waxaad sameynaysaa marka hore start button ayaa taabanaysaa, kadib this PC baad tagaysaa, right click ayaad leedahay, kabacdi properties ayaad kusoo dhufanaysaa. marka meesha anaga aan rabno waa halkan. kadib haddaba computerka windowga ku jira waxaad ku ogaan kartaa halkan, sidoo kale RAM size-ka halkan ayaad ku ogaan kartaa, CPU-gana halkan ayaad ku ogaan kartaa. Windowga hadduu active yahay iyo haddii uu active ahaan halkan ayaad ku ogaan karaysaa. Marka hadda for example Windowskii ugu jira anaga waa Windows 10 Pro ayaa la yiraahaa. sidoo kale RAM-kii ugu jiro waa 4GB. waxaa usable ka ah 3.89 ayaa usable ka ah. Systemkii ugu jirana waa 64 bit. sidoo kale windowgeygana waa active waayo halkan waxaa ku qoran Windows is activated, laakiin hadduun active ahayn halkan waxaa kugu soo qorayaa Window is not activated. sidoo kale computer name-keygii waa halkan aan ka ogaan karayaa. computer name hadda waa desktop PJC1G ayaa ku qoran, waana la bedeli karaa magacan, dhib malaha, waxweyn maaha. halkan ayaad ku ogaan karaysaa insha Allah. waddo kalena way jirtaa, mid kalean ku daraynaa hadda. bismillah. waxaad tagaysaa haddana sidoo kale control panel baad tagaysaa, system security ayaad kasii tagaysaa, system aad kasii tagay haddana waka isla positionki hadda ayayna keentay wadadan. marka walaalayaal casharkeeni maanta halkan ayuu ku egyahay. waan idin salaamayaa oo kheyr badan ayaan idin rajeynayaa. isku day inaad wax ka yar fahantiin insha Allah ta'ala. See you next class.